كهاري ويدا واكو هايستا ظلمي إلى هاي مشعلا قفكي ظلمي جيستا قنديه سيتمادا أضيع عيالك حن مالك إلا سعانو المدافع اللي دعي وحلا عيدا كقرنكا ما أنت إسقى هيستا برورتا يقيلدا يسوحن كنمكي يدور كييريا إيجي بلاد إيجي ciidamada qaranka waxaanu leenahay hiil iyo hoo iyo haa iyo hayba waan idin la garab taaganahay ilaa magaceeni iyo maamuuskeeni aynu dib u soo celinayno adduunyadu waa wargeys dhacdiya waayaa ku qoran taariikh la soo warshiyo sooyaal wacan baa ku yaal war iyo sheeka ku taxan wuxuun bay tabinayaan tusaale ku waafaqiyo wanaag badan baa ku jira waanana waa laga helaa bismillaahir rahmaanir rahiim allahumma salli ala sayyidina muhammad assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kulanti waana wanaagsan dhamaan umada Soomaaliyeed goob kasta iyo goor kasta joogtaan waa barnaamijkeena iftiiminta oo maanta isku dul taagayno adduunyada inta aad joogtid dulmiga waxa la yiraahdo waliga iska ilaali waliga waxaad iska ilaalisaa qof aan waxba ku geysan dhibaato ku geysan inaad dulmi iyo aabi iyo adab darro aad la dooratid oday cigaal xun leh halkan aan idinka tusi doono oo maalinkii laascaanood madaaficda la dhacayay ee dulmiga iyo adab darrada Muuse Juudaan gaal iyo islaamba u abhiyay warood naga tag war dadka iskaga tag gaal iyo islaamba yiriyo diiday oo intii shariicada islaamku ay nafartay inaad qofka iska abhisid hadduu ka joogsan waayana inaad la dagaalantid ay bahashu gaadhay oo aanu abhinay warood naga tag war tamar ma haysid warood naga tag war tayamalihiina ord naga tag war tolku qabsada malihiina ord naga tag Muuse Juudaan waa tuu diiday waa anigii halka ku ballan qaadnay inaan naf iyo maal uulan waxba kala bixin gooja cadiyo gobolka Sool sidii baana Ilaahay ka dhigay haddaba waxaan rabaa nimankii dooro media ka qaylinaya balanbalnayay Soomaalilaanay tolay dooro ogaadeen bal la dagaalamayna ka kacoy baroortooda iyo wixii ay shalay nimankaas ku hadlayeen oday igu yiri waa Arab oo cigaal sita ayaa maalinkii maalmihii ugu darneed magaalada Laascaanood ee maatada iyo shacabka 788 wadarta loo aasayay dadka ee da 30 iyo 105 lala dhacay magaalada Laascaanood baladeegay oo aan qoriga aakaha la hortaagnayn intuu Hargeysa gurigiisa ka soo toosay oo cigaal xun soo xirtay buu yiri ciidanka qaranka haddaanu nahay beeshay door isaaq haddaanu nahay waa ku wada soconnaa ciidanka qarankan garab taaganahay maalinka musiibada maanta haysata ma filin ismana lahayn tanaa kugu dhici doonta bal iska badaaye social media habay odayaasha soo fariisanayeen ogaadeen baa dagaalka ku jira war kuma jiro Reer Cabdullaah Maray war u kaadiya waa cawliyahan war hooy jooga waa bahgariya daraawish war allihiin alla meeyay waa reer isaaq war balaayo looma yeedho war nimanka ogaadeen ee dhaantada iska tumanaya ee aan war idin ka hayn war ii doorow jooga war haw yeedhana intii dagaalkaas socday 8 bilood ee dagaalku socday nimankaasi maalin nimanka afka kama qaadin waxa la yiri reexamar ku xidhaan balaayo ku haysato abo ma looga baxo ka hari weyday maantay ku haysataa balse waxaan rabaa oo dulucda ujeedada hadalkaygu yahay garaad Cabdullaahi garaad Saleebaan ayaa odagaas maalin ku hadlay kelmad yiri xaaladdu waa after iyo before baan ku waa ficil iyo ereyba labadiiba waa la hayaa baan ku Faysal Cabdi Bootaan eegay Soomahay ninkii lahaa afhayeenka maamulka Khaatmo adigoo maxbuusa leeyka keeni doona isagoo maxbuusana gurigiisa lagu geeyay baladeegay garaa Cabdullaahi garaa Saleebaan wuxuu yiri odagaagan ciyaalka xunow haddaad jeclaysatay Laascaanood inaad madaafic la dhaco dulmiga inta leeg aad ku taageeriso horta lin laandheera abaan hay buu yiri laandheerahana inaan gumeed cuqdad qabahay waxba ma yeelo Muuse Juudaan inaan gumeed cuqdad qaba buuha baladeegay oo waxba na yeeli maayo namana tirtiri karo laakiin balaayada dalbaysid buu yiri gondahagaad ka helaysaa tii oo aadan filanayn Ilaahayna maanta nimankii ogaadeen reer isaaq Ilaahay ku imtixaamay qayrada iyo baroorta iyo sawaxanka Hargeysa ilaa Burcays haysata baladeegi talaayay warna sooga yaa idin gurman karada Ilaahay wuxuu rabbo ku caafsha iyo anoo ku caansha mooyana wala caafimaad ma fadhiid cali oo buu hodlay
maanta ciddii kaaga gargaari lahayd adaa doontay adaa raadsaday adaa cagahaaga ku doontay reserve area urur Soomaali haddaan urur Soomaali nahay reserve area goosanaynaa annaga waxa daarood nooma talin karo taayadiiba waa diiday adaa buuqa samaystay oo cagahaaga ku doonsaday bal odaygaas hadalkii qadafka uu maalinka ku hadlay iyo maanta ishiisaynu eegaynaa balada eega eriga waa kana ciidamada qaranka waxaanu leenahay hiil iyo hoo iyo haa iyo hayaba waan idinla garab taagannahay haniya jabina waa idinla taagannahay waa idiin imanaynaa waa idinla joogaynaa waa idin ag fadhiyaynaa waa idin horgelaynaa ilaa magaceennii iyo maamuuskeenii aynu dib u soo celinayno waa ilaa aan magaca isaaq iyo dulmiga iyo adab darrada dadka deegaanadooda ku doonanay iyo wixii ingiriisku inoo sheegay ninkii hantugu ku sidi jirnay haddaynu nahay iidoor eega ingiriis cadow xagee ka dhunkada baladeegi ilaa meeshu inoo tilmaamay aynu tagno way idin garab taagannahay buu wuxuu ku garab taagan waa dulmi waa aabi waa xaraan waa iimaan la'aan waa gardarro waa adiyad baladeegi waa wax dhiig islaam on ilaahay u banayn dad guryahoodii intaad ugu tagtid inaad kullaysid ood khasab tiraahid anigu aan idinku maamulood gumaatadooda iyo caruurtoodii leesay ayuu ku garab taagnaa wuxuu yiri hiil iyo hoo iyo hii iyo buu iyo juu waa idin garab taaganna gar iyo gardarraba weligiin ma aragteen mase maqasheen aabi iyo dulmi kaa ka weyn dhiig islaam iyo maato iyo caruur aan waxba galabsan eegay inta guryahoodii loogu tago madaafiic lala dhaco oo lagu raaxaysto waliba bal iska daaya iidoor xafladay dhigtaan xaflado Hargeysa iyo Burco eegay markii laascaano dadka lagu leynayay oo maatada waxa way lagu xasuuqayay oo dumarka iyo ciyaalka iyo maatada wadarta loo aasiyay toddobada macnaha inta saa bacda loogu duubo eegay sida godka loogu ridayay Hargeysa iyo Burco xafladaha ka socday ma ii sheegi kartaan geey Soomaaliyada arrinkaas ka dhacay teer wuxuu yiri intii qarjiray qurux waa jiray Soomaali intay jirtay waa la isleynay oo waa la isdilay oo waxba la isuma reebanayn eegay dulmi iyo aabi iyo xaq darro iyo mid xaq ah inta Soomaali waa isku leys wali ma maqasheen deegaan Soomaaliyeed looga dabaaldegayo dad islaam ah dhiigoodii Hargeysa ka dhacday Burco ka dhacday kuwan ismada sheeganaya kala cigaalka xun baa sidaa ku dabaaldegayay Hargeysana khayriyada la isugu soo baxay xaflada ugu dhigta fanaaniin loo yeelto laascaanood madaafiicda ku socotay dadka lagu leeyay garaad Cabdullaahi garaad Saleebaan ayaa maalinka kelmad yiri bal hadda eegay kelmadii garaadku maalinta yiri wal araba horeer balli gubadla balkaan maxaaska ayaa bari balli gubadli badiga soo reer balli gubadla ma ahay kan cigaalka xusi adawada khulaba hadda balli gubadlaha meelaha iska joog Hargeysa dhexdeeda ka hadlaya oo la jeclaysa laascaanood tobanka aqal hadheena sii gubni ninku haduu la jeclayo guri islaami leeyahay inuu gubto waa wax la yaqaano insha Allah tuu joogo baa mid aan filaydo guba intaasaan leeyahay gurigaaga Ilaahay gubi doona wa erigi garaad Cabdullaahi garaad Saleebaan maalinka yiri taad joogtid baa gubad doonta mid aadan filanayn eegay ayaa ku iman doonta maanta ay taagantay maanta barortu meel walba saacataa maanta miiriyo hodhan laga wada qaylinaya maanta la leeyahay tolaayo urur Soomaaloy yaa kurur Soomaaloy waa nala soo weeraray jinni iyo jaan wixii Soomaali galbeed joogay iyo wixii gobolada waqooyi joogay ee waxa way waqooyi galbeed bal hadda eegay Burco iyo Hargeysa olala ka socda tolaayo urur Soomaaloy soo cararay waa niman reer Isaaqa oo reer Cali la yiraahdo oo marka hore iyo Arabo islaayay sheekadii waxa loo bedelo hub baa la soo qaaday miinooyin baa la soo qaaday waxaanu goosanaynaa urur Soomaaliya hadii reserve area hawd baynu goosanaynaa ogaadeen baynu ka go'aynaa sheeka afoosta ah baa la soo riixay oo Hargeysa laga malmalayo iyo Djibouti iyo Hargeysa waxa laga falkinayaa baladeegay in Soomaali galbeed la kala gooyo oo la reserve area hawd baanu anagu u go'aynaayo waxa way saddexda tuulo aan leenahay baanu la go'aynaa dagaal dad shacab oo masaakiina ayaa la galiyay tiba maanta loo baroranaya anu hadaba mid baan ku sheegaya dantaada ah nimanka ogaadeen baa la yiraahdaa baladeegi ma yaqaanaan sheeka jilicsan iyo niic iyo edab darro inta la doonatid inaad ku badbaadid
ood ogaadeen kaga badbaadid habeenkii xaleha oo tagi weeye ninka hargeysa ka baxay iyo kan burca ka baxay ee u sii tugtugle Soomaali galbeedow marxuum khaldaan baad dad halka ku dhimatid marxuum khaldaan baad hay baladeegay markii horena dagaalku wuxuu ka bilowday nin askari oo ciidanka Soomaali galbeed ka tirsan baa nin shacabi dilay hargeysa u cararay markii wardadkii keena baladeegay haddana dagaalka wax kale loo oogi maaye in la yiraahdo safe area lagu aynayo urur Soomaaliyeed hay daarood baan isku celinayna ogaadeen aqoon baa isha idin yeeshay eegay dii alleehin alleeyahay oo aad naftiina rajo ka qabtaan baladeegay nimanka ogaadeen baa liyada ilaahay baan ku dhaartay waa kugu duldaantaynayaan waa kugu duldaan sida loo naxaba inaanay aqoon baladeegay sida loo naxaba inaanay aqoon waa kugu duldaantaynaya waxana waxa laga farkinaya waa xarshin iyo Muuse Juudaan oo cuqdadii ku raagtay dad baa ku leeyahay Muuse Juudaan muxuu arrinka Muuse Juudaan waxa soo falkinaya xarshin baa laga soo falkinaya nimankan arab waa la soo taqadimay dagaalka idinku halkiina ka bilaabay baladeegay haddana gurmadka meel walba hal gurmado war wallahi oo billahi oo tallahi Muuse Juudaan hargeysa kugu imanayaan ogaadeen aqoon baa isha ku yeeshay waadna garanaysaayo maalinkaad miyi ka soo carartay eegay oo magaalo soo galeysay cuqdadaad magaalo u soo gashay waxa weeye geeri aad waxa weeye dhoobirka ka ahayd dhoobirka geeri aad ka ahayd baa ogaadeen qaaday cuqdadu waa ilaa yaraantaadii baladeegay wax kale kuma hayaan tanna maanta xarshin aad ka soo falkinaya laakiin waxaan ku sheegayaa xarshin iyo tuulooyinkan inta la isla dhaafo ogaadeen iyagoo dhaantada tumanayaan ku dirgax eeyay dhalay dirgax iyagoo kule bay hargeysa kugu imanayaan guriga Morgan ka soo qaadanayaan guriga Morgan eegay haddaad anaga gacanteeda ka fogeyd ogaadeen gacantiisa waad u dhowdahay odaga arabna waxaan leeyahay dulmiga iyo aabiga eegay ninba xadhigi xuro barkii ku xidhan waxaad maalinkii laas caanood la doonaysay oo aad la raadinaysay maanta aad u cigaalkii Soomaa tuurin Sooma barooranaysid soo hargeysa dhexdeeda sida marada u tuuri maysid baladeegay ka hadhi weydaye waa ku haysataa xiriir waa lagu digtaa ruux hadduu ku darnaa jiray baldayay waa ka odagii ciidamada saa u wareejinaya eegaalaha la kaxo tolay meel shaad saa u rugtid media dhinaca saa u rugtidba nimankii iyo door baa qaylinaya oo barooranaya baayay urur Soomaalo hadda ayaba urur Soomaalo noqota markay doontaan reer bani Israa'iil bagasha uftadado haddaad maqasho waa awda gudahaaga war khayr iyo baraka idin rajeenaya assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh